cilmi baadhis laga sameeyay faa'iidada uu u leeyahay dalka Soomaaliya barnaamijka higsiga cusub ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho markale waatan Nimca Maxamed Bashiir oo warkan halkaasi ka soo dirtay qaar kamid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Indian Ocean qaybteeda BA-da ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen faa'iidada uu bulshada Soomaaliyeed u leeyahay barnaamijka higsiga cusub ee New Deal oo kamid ah qorshayaasha la doonayo in lagu horumariyo dalka Soomaaliya munaasabad ay ardaydani ku soo bandhigayeen buug ay ku soo koobeen cilmi baaris ay ka sameeyeen faa'iidada New Deal oo lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacaddaasi ayaa waxa ka qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda iyo ardayda wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay Cabdirashiid Axmed Xirsi Axmed Maxamed Yuusuf iyo Aadam Maxamed Cali oo ah saddexda arday ee daraasaadka ka sameysay barnaamijka higsiga cusub ee New Deal ayaa ugu horreyn ka qayb galayaasha xafladda u sharaxay muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay New Deal-ku iyo qaabka ay ugu suura gashay in ay daraasaadkan ka sameeyaan New Deal-ku wuxuu ku hogaaminayaa wadamada qaska la soo kulmay iyo fawdada wado taas oo xoojinaysa awoodooda New Deal-ku wuxuu ahaa tijaabadii ugu weyneed ee soo marta taariikhda dadka Mareykanka Soomaaliya haddaan soo noqono Soomaaliya hore uma soo marin New Deal waxa la yiraahdaa aqoon uma leh dadkana waa ku cusub yahay hasaahate si bilaab ayaa waxa loo bilaabay يعني مشروع لو مقعد دري go to school oo lagu talagalay in ka badan 1 milyan oo arday dib in lagu celiyo shaqada waxbarashada ama iskuulaha ujeedada weyn cilmi baarayaashu ay lahaayeen waxay daraasadan ka lahaayeen waxay ahayd inay baaraan faa'iidada New Deal-ku uu leeyahay Soomaaliya objective-ka ama hadafka gaarka ah cilmi baarayaashu ay baaraan cilmi baarisan ka lahaayeen waxa ah koow in la qiimeeyo sida New Deal-ku uu u bedeli karo caasimadda dagaalku afeeyay Soomaaliya xaq bulsho dhaqaale iyo siyaasad cilmi baarista oo soo sameeyay target bulshada wuxuu ahaa 100 qofood anagoo dadka su'aalo weydiinayna labada qofood hal qofood ayaa su'aalo weydiinay marka waxay noo soo baxday sample size noo soo baxay wuxuu noqday content xogta waxaan u isticmaalnay questionnaire iyo interview waxaan rabaa galaa inaan soo jeediyo chapter 4 waxaan uga hadlaynay data analysis kan ku soo ururiyay wuxuu ahaa gudaha xukuumadda toban maamulada degmooyinka wuxuu ahaa 7 bulshada reerka wuxuu ahaa 13 bulshada caadigana waxay ahaayeen 20 daraasadan waxay dhiirigelinaysaa dadku wax maal gashta oo kuna waddanka Soomaaliya ama dibadaas ka yimaada inay ka heli karaan xog muhiim ah habbu meeshay doonaan inay mashaariic ka sameeyaan saddex waxaa ka mid ah in dowladda Soomaaliyeed ama NGO-yada maxalliga ama kuwa loo yaqaano CPOs-ka inay ka helaan xog muhiim ah horumarineedkooda bulshada caalamka waa inay bedesho siyaasadeedii hore ee ahayd ee ku saabsanayd fowdadii iyo waddankeena burburkii ku dhacay haddeeroo dowlad caalamka laga aqoonsanaya international aan haysanana ay soo jeediso ama isku daydo in ay hergeliso ay macnaha ku raadiciso dowladda inay barnaamijkaas siyaasadeeda gudaha iyadoo faragelin ku sameynaynin ay halato cilmi baarayaashu waxay soo jeedinayaan in ciidan Soomaaliyeed oo xoog iyo tayo badan la dhiso lana asliimiyo ciidankaas si loo kaaftoomo ku tiirsanaanta awoodda shisheeye oo Soomaaliya u keenay inay amniga sugaan Professor Cabdiqaadir Maxamuud Cutush oo ku xigeenka maamulka jaamacadda Indian Ocean ayaa gabagabadii xafladda uga mahadceliyay ardayda dadaalkooda ku aadan soo bandhigida barnaamijyada waxtarka u ah bulshada Soomaaliyeed Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho